Dunida aan ku noolnahay waxay u kala qaybsan tahay dalal kala duwan, waxaana dal kasta ka go'an xuduudo ama sohdimo u kala qaybiya waddamada deriska la ah. Xuduudaha qaar waa kuwo deggan ama xasiloon oo dadku si xor ah uga gudbaan, halka xuduudaha kale ay yihiin kuwa ugu khatarta badan caalamka. Meelo badan oo dunida ka mid ah, xuduuduhu waxay noqdeen goobo dhimasho iyo khatar joogto ah ay ka jirto, halkaas oo ay ku dhinteen kumanaan qof, kuwo kalena ay ku waayeen xorriyaddooda. Maanta waxaan idinla wadaagi doonaa xuduudaha ugu khatarta badan caalamka. Xuduudda Waqooyiga Kuuriya iyo Koonfurta Kuuriya. Xuduudda ay wadaagaan labadan dal waxaa loo yaqaannaa Demilitarized Zone, waana mid ka mid ah xuduudaha ugu halista badan caalamka. Xuduuddan waxay dhererkeedu gaaraysaa 250 kiiloomitir, ballaceeduna wuxuu gaarayaa 4 kiiloomitir. Waa meel ciidan culus ay ku sugan yihiin oo ay miinooyin ka buuxaan, waxayna halis ku tahay qof kasta oo isku daya inuu xuduuddaas ka tallaabo. Waa laba waddan oo si buuxda dagaal uga jira, inkastoo heshiis xabad joojin ah ay jirto laga soo bilaabo tan iyo sanadkii 1953. Xuduudda Hindiya iyo Bakistaan. Xuduudda u dhaxaysa Hindiya iyo Bakistaan, gaar ahaan gobolka Kashmir, waa meel ay ka taagan tahay xiisad dagaal oo soo jiitamaysay muddo dheer. Labadan dal waxa ay haystaan hubka khatarta badan ee nuclear. Xuduudda dhex marta waxaa loo yaqaannaa Line of Control. Waxaa halkaasi ka dhaca dagaallo waaweyn oo sababay dhimashada kumanaan qof, gaar ahaan dad rayid ah. Xuduudda Mareykan iyo Mexico. Xuduudda Mareykanka iyo Mexico waa mid ka mid ah xuduudaha ugu mashquulka badan caalamka, sidoo kale waa mid khatar badan. Waxay dhererkeedu gaaraysaa 3,145 kiiloomitir. Dad badan oo ka baxsanaya faqriga iyo rabshadaha ka jira waddamada Latin America ayaa isku daya inay xuduuddaas ka gudbaan si ay u galaan Mareykan, balse safarka saxaraha Sonoron iyo dhulka kulul ayaa ah mid aad u halis badan u ah. Dad badan waxay ku dhintaan haraad ama kulaylka qorraxda. Kooxo burcad ah ayaa si joogto ah u beegsada muhaajiriinta, qaar waa la kufsadaa, qaar waa la dilaa, qaarka kalena waa la afduubtaa si lacag badan looga helo qoysaskooda. Xuduudda Suudaan iyo Koonfurta Suudaan. Suudaan iyo Koonfurta Suudaan waxay wadaagaan xuduud dheer, balse colaado sokeeye iyo dagaallo qabiil ayaa si joogto ah uga socda. Koonfurta Suudaan waxay heshay xorriyaddeeda sanadkii 2011, laakiin tan iyo markaas dagaallo qabiil iyo khilaafaad dhuleed ayaa sababay dhimashada boqolaal kun oo qof. Qof waliba oo isku daya inuu xuduuddaas ka gudbo waxa uu la kulmi karaa askar dil toos ah u fulisa ama koox hubeysan oo boobaya. Sidoo kale, barakacyaal fara badan oo ka cararaya colaadda ayaa halis ugu jira inay ku dhintaan gaajo ama cudurro. Xuduudda Iiraan iyo Afghanistan. Xuduudda Iiraan iyo Afghanistan waa mid ka mid ah xuduudaha ugu khatarta badan caalamka. Xuduuduhu waxa ay u muuqan karaan khadad fudud oo khariidad lagu calaamadeeyay, balse xaqiiqdu waxa ay tahay in dad badani u dhinteen. Waxaa jira xuduudo kale oo khatar badan, sida xuduudda Ruushka iyo Ukraine oo dagaallo ay hadda ka socdaan, xuduudda Israa'iil iyo Falastiin oo si joogto ah colaad ugu jirto. Dunida aan ku noolnahay, xuduudo ayaa badanaa horseeda dhimasho iyo burbur. Su'aasha dad badani isweydiinayaan ayaa ah: miyuu imaan doonaa waqti uu bini'aadamku xuduudaha uga gudbi karo si xor ah oo aan cabsi lahayn?